بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالي ربنا با تبارك وتعالى أي مهدي سقناتي مهدا سو أفي أدم بك إيماتي كلمة دان وحان كجهل لنا ما فدينا كوبن إلهي تبارك وتعالى هدو نو إدمه وحان وجهل لنا يعني مسائل دورة kuwaasoo ku saabsan ninka loo yaqaano cali raage ku saabsan kaasoo anagoo dhowr hore ama dhowr jeer aanu ka duubnay baadilkiisii uu duubay waxyaala lid ku ah ama looga jawaabayo tani waa midii ugu dambeysay oo soo duubay jawaabteedii oo ah mid uu ku magacaabay sab'ul carabiyaat toddobadii dhaqan ee carbeed ee laakiin diinta laga dhigay sida asagu sheegayo weeyade waana midda ugu dambeysay oo soo duubay isagoo lugaha isa saartay fadhi weyna ku fadhiya kaanama aad moodidba nabi maxamed xadiiskiisii uu ka sheegay noocaasi inuu matalayaba sab'ul carabiyaad wuxuu yidhi toddobada arrimoodna haween bay ku tacalluqaan ma aqaan haweenka miyuu magac uga raadinayaa mase waxay ka mid tahay waddadii hore ee ahaa gaalada iyo cadaada islaamka hay qodobka dhaqdhaqaajinayeen oo ah inay islaamka u soo maraan dumintiisa ayagoo sheeganaya xuquuqul mar'a ayaan wax ka qabanaynaa ma wadada yani nimankaas ku afkaarta hore soo keenay miyuu hayaa mase waa ka duwan tahay Allahu a'lam laakiin toddobadaba haweenka ku tacalluqaan toddobaduna waa haweenka waxa ku saabsan way midda kale meesha laga fahmi karo waxaan moodaaba asaga laftirkiisa haweenka inuu ka mid yahay sababta waayo muxuu uga cabaadayaa masaa'ishan haween baaba iskale asaga looma dirsanba haweenaydii yani loogu talagalay iyadaaba la imaanba marka ma haweenku ka mid yahay ma aqaan sababta uu cabaadayo ama uu cabanayo qodobadiisa yani waan kala qaadaynaa toddobada arrimood iyada gooni baan uga hadlaynaa insha Allah waxaan kaloo ka hadlaynaa oo qaybta ugu dambaysa ama kelmada ama fadhiga ugu dambeeya su'aalo uu sheegay in la soo weydiiyay uuna ka jawaabayay ayaa anaguna jawaab kala dul saarayna laakiin midda ugu horeysa ee hadda halkaan uga hadli doono walaalayaal waxa weeye masaa'il dhowra asagoo beyt ama gabay shaafici uu iska lahaa tilmaamay iyo qodobo kale uu tilmaamo uu yiri culumto dhan agteena waa muqaddasa way waa mid yani lama huraan wuxuu kala sheegay عربي اللغة العربية يفضلجيدا يعني جنسية دتك عربتك كسو جيدا يحوجا حقري تاس فديجنا انت أصلا فديجنا نهارا كوب كابسنا إن شاء الله تعالى على ذلك وحيره المقدمين يسروا كب مركز لقي ما هذا استفتاحي سا وحيره أنه صومالي بانهاي صومالي بانهاي إسلام نوان دوننا muxuu yiri anagu Soomaali baan nahay Soomaali buu ku faanay Soomaalinu macnaha ku faanay ka anna waxa muddo Soomaalinimada rasmiga ah inuu wadadayda hayo haddana wuxuu yiri islaamniman doonaynaa ha horta Soomaali hadda tahay magaca Soomaalinimadana aad ku faanaysid asalkiisa faracaadi ka soo jeedina aad difaacaysid dhaqankoodii sida aad u hadashay oo maada hadli lahayn dhaqanka ka soo fulayna kaamu soo fuli lahayn haddaad Soomaali original tahay sababtoo ah waxa aad durayso wax ka sheegaysid waa wax Soomaali aabayaashood ay ka dhaxleen Soomaali diintii ay ka dhaxshay aabayaashood ee saxda ah way waa waxay aabayaashood ka soo gaareen صحيح البخاري بأكتوض مقدس كأ أديك فلسفة يا عقلك بكهدي أكتوض مقدس كيهاي أيها الصحابة النبي محمد أكتوض ومقدس يعني وضد خط الأحمر لي هذا وضد عس لما تهبطانوي لكن هذا هو حبتك الشيء جيسا نمك اللي يرى ضدك الصومالي ده وحي هايستان حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيساء الضليقة يعني معناه هذي أو هايستان adiguna waxaad ka sheegtay Soomaaliba waxaad ka sheegtay marka Soomaali original hadda tahay ficilka iyo dhaqanka iyo afkaartaas
kaama soo fureen inta lagu isa saaratana maada dhahdeen toddoba dhaqan carbeed oo diin laga dhigay maada dhahdeen bal waaba diinba say diinta u yihiin oo arki doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala marka Soomaalinimadu way ka fog tahay xaqiiqadeedu laakiin Soomaalinimada qarniga lagu qaraabto haday tahay Soomaalinimadu de waa baab kala midaas laakiin Soomaalinimadu ka fogtay islaamniman doonina buu yiri oo sootaad lahayd Soomaaliyay diinta rabtaan qaata Kristaan qofkii noqonayo noqo qofkii Yahuud noqonayo noqo qofkii islaamnimadaadi dhaxashay ahaanaysidna ahaw xorbaati sootaad tiri qof walba diinta ay dhaqanka doontid iyo afkaarta doontid qaado sootaad tiri islaamniman doonayna waa adiga leh hadalkaada hadalku ka soo horjeeda midda kale Soomaali sax ah hadaa tahay Soomaaliya laga heli maayo gobol ay degan yihiin Kristaan gobol ay degan yihiin yani dad Yahuuda laga heli maayo qabaa'ilka Soomaaliyeed dad dhex degan oo qabiil Soomaaliyeed oo Yahuud ama Kristaan ama diimo kale oo diinta Islaamka ah ama dhaqamo kale u nasab sheegtay laga heli maayo Soomaaliya oo dhan 100% waa muslim bal laga ma yaqaan qofka diinta Islaamka ka baxay la yaabaan haday se bedelinba bal iska daa firqa Islaamka aysan laga ogolayn sida Shiicada oo kale haddana waxa leedahay qof walba diinta rabti qaado yani Shiicadu waa saxan yihiin Soomaalina waa ahay baa leedahay kuwaasi Soomaali way nicibina la soco dhaqanka Soomaalidu waa ka soo horjeeda dhaqankaada mucaarad buna ku yahay adiga laakiin waxa rabtaa inaad ku nagu beertid fikrad ah Kristaan Yahuud qoyskan waa Kristaan magaaladan Kismaayo waxa degan Kristaan Muqdisho waxa degan qayb Yahuuda magaalada Hiblaayo waxa degan saas Hargeysa saas degan isku dhaf muslimnimadeena saxda ahayd ee 100% ahayd rabtaa inaad mushakal ka dhigtid يعني أدونيسا أديك يو واحد كادم بيو الله أعلم واحد يهيني كل واحد شيء قطعين دت كادم بيو أنا واحد ترى هذا أنكم مشروع بهوضنا مركز الصومالي نبى كافو دين تيري بدور يساعد نحلين نحل كيري رسمي كهذا وحكي شيء جيسا دقن كيري رمبات كجورتي وأديك كام مقنبة واحد أكتر أيها كأه لما تابتان بدور يساعد صومالي بأنها إسلامي من دون أنا والده هذا الكذا سوى شوي wuxuu kale yiri oo hadalkiisa ku sii darsay muqaddimihiisa ku yiri annagu buu yiri marka muxaadarooyinka duubnay dad badan tiro badan oo Soomaaliya soo dhaweeyay afkaartii aan soo bandhignay sida darteed kana hadda saasan u duubay ayaga igu sii dhiirigeliyay buu yiri horta taasi waa beenta dadka soo dhaweeyay afkaartaadu waa shirdimatun qaliilun waa koox yar oo midba meel taagan yahay oo meel fadhi iyo marjic iyo majlis u leeyahay uu soo jiran Facebook wax ku soo qoraa Soomaaliya oo dhan waa aragtay marka soo YouTube waxa ay soo galgaliyeen say nacalada midka nacalada midka nacalada iyo midka kaas laana islaamnimadu waxa muqaddaska ah baad wax ka sheegaysa marka Soomaali badan ku soo dhaweysay ma jirto waxba taageero beeraha iyo niyad beeraha isu sheegin cali reebo isogna dad dhowr waay oo midba meel taagan yahay oo midba meel ku qalalay ba afkaartooda oo awal barrimana afkaar xun ayaa xogaa u qujuqujaysi oo u taabatay oo farfaraysay waxay rabeen marka waa dad yar baan leenahay anagu dad badan kuma soo dhaweyn Soomaalina intooda badan 98% ama 99 ba iyo ka badan ba waa ka soo horjeedaan afkaartaadana mar rabaan dadkooda iyo diintooda bay ku dhagan yihiin dhaqankooda saxda taasi la soco waxba niyadaada ciriiriga ku jirta aan ogahay waxba niyadaha soo dhisin wuxuu yiri mushkilaadka islaamka waxa kamid ah afkaar tirada ka batay mushkilaadka islaamka waa beenta مشكلات كمسلمين تدي إسلامك ودينة إسلامك إن الدين عند الله الإسلام دينة إسلامك مشكلات مرها ووحي إلهي سودة شيء وحي النبي محمد لقد عليه حديثي سي والطاهر هالكات الله لكن مشكلات دي بطل دقل حمد المسلمين كإيمان كرتها مركا وحا كب الدليل إنا ترادين مشكلاتها مسلمين وحا كميدا إنا دهدين لكن ما أهان إنا ترادين مشكلاتها إسلامك يعني أحال ربا إنا ترادين مشكلاتها مسلمين وحا كميدا لكن مشكلات مسلمين يعني إسلامكم ملهن dhaqanka xun ee dad muslimiinta qaar buu ka imaada laakiin islaamku waa diintii waxyiga Allah soo dajiyay kala fahan marka kala garo dadkuna saa u kala fahmeen farqi baa u dhaxay islaamka iyo muslimiinta islaamku waa waxyiga Ilaahay iyo diintii muqaddaska khalad uu ku jirin muslimiintuna waa kuwa kaas waxyiga raacay khalad waa ka dhici kara saxna way yeelan kara marka taas waa ka saxaya sadarteed buu yiri carabiyaadka wuxuu yiri waxyaalaha soo wado iyo xataa aqliga quraan yeelimayo aqliga quraan inuu yeelayaan waa arki doonaa عقلك ودوا عقلك مع عقلك على ثاقة مع عقلك حسين مع عقلك عائشة مع عقلك ييبة عقلك ودوا كي عقلك كم يسنة
caqliga saxda waa yeelayaa waxa adigu aad moodeen caqliga uu ka soo jeedo quraankuna waa yeelayaa barteedan ugu tagay doona insha Allah wuxuu kale yiri muqaddimadiisa ku sii daray annagu ummadan xoreynaynaa ya subhanallah ahlan wa sahlan ha dadka xoreynaysa miya laakiin dib uu iska burburiyo wuxuu yiri laakiinha صعب in dadka la xoreeyo waa adagta dadka meel hore lagu xirxirtay buu yiri waa adagta in la xoreeyo waa quus u taagay moogta annagu waxaan leenahay adiga inaan ku xoreyno way fududahay laana waxaad waa iska basiid dadka laakiin waxa uu leeyahay in la xoreeyo baatilka loo soo jiido xaqana laga soo qaaday xaq bay haystaano xaqooda Soomaali iyo diintooda in laga kaxeeyo mar raban way ku adagtahay ha dhiigooda dhaafsanaya sadarteed halka run baa ku sheegtayo inaad xaq dadka ka kaxaysid Soomaaliyeed waa adag tahay mana dhacayso ilaa qof Ilaahay dhuminayo nasiibkiisa u xumaaday mooyaan oo kuwa meelaha taagtaagan oo dhowrka xaba oo afkaartaada xanuunsan la dhacay mooyaan wuxuu yiri culimada soo dad haysta ma aqoon haystay wuxuu yiri Soomaalina naga fogeeyeen buu dadka dad ma aqoon ku haysta firqooyin Soomaaliyeed oo macluumaad haysta kullu wuxuu yiri Soomaalina la ka fogeeyay buu ma aqaan dadka Soomaalinimada ka fogeysay asagaaba ka fogba Soomaalinimada cidba kaama fogeynba naftaada ka fogeysay Soomaalinimada waa ka fogtahay afkaartaada Soomaalinimo way ka fogtahay marka ma dhihi kartid Soomaalinimada naga fogeeyeen Soomaalinimada nooga ciyaareen Soomaalinimada horta ay haysatay laga ciyaareen maxay tahay horto ma jirinba ha faacdi kulli yani hadii la kun faaqidu shay la yuutihi bali qof faqiira waxba ma bixiyo qof shay asagu uu sahaysan ma dhihi karo waa bixin kara waxaad haysan oo yani agoonka ka tahay oo abaarta ka tahay ma bixin kartidba adigaaba Soomaalinimada tabcaanka ka ah Soomaalinimada in ugu soo celiyay islaamnimada saxda ah u baahan ee Soomaalinimada aad ku jirto saxda haysato laga saaray waatee noo sheeg bal mid iyo laba nooga sheeg ma jirto Soomaalinimada naga fogeeyeen marka hadalkaadaas waa baatil inta kadib wuxuu wax ka sheegay al-luqatul arabiyya ayuu wax ka sheegay marka waxaanu tilmaami doonaa oo qodobada ugu dambeeya ayada ay kamid tahay luqada arabiyya waxay tahay luqada arabiyya wala layaal waa luqada looga hadlo awtaanta iyo wadamada carabta shacabka carabtu ay ku sheekaystaan iyo in badan oo muslimiinta kamid oo aan carab ahayn luqada arabiga luqooyinka caalamka laga isticmaalo midda koobaad weeye waliba luqadaha laga isticmaalo meelaha shirarka dawladuhu iskugu imaadaan luqada koobaad laga isticmaalo weeye sida qaramada midoobe sida darteed qawaaniinta qaramada midoobe hadaad fiirisid luqada koobaad ay ictiraafsan yihiin waa carabiga ingiriiskuna waa ku xiga cali raago taasi haday ka maqnayd iyo Soomaalida ka maqnaayeen baha ogaadeen qaramada midoobe luqada koobaad ay aqoonsan tahay oo fasti waa mid waxa weeye carabiga ingiriiskuna waa tan labaad weeye la socod waa luqada muhiimadeeda ku tusaysa macna meelaha kale laga isticmaalo waxa kamid ah dawladaha carabta shirkooda ee midowga Afrika waa laga isticmaalaa caalamka carabta dhamaan waa laga isticmaalaa jaamacadaha dunida inta badan iyo meelo badan lagu daraaseeyaa jirta oo xataa dhulalka carabta aan ahayn ahmiyad bay leedahay luqadan li'annaha waxa ku dhisan diinta islaamka oo aqal oo dhan isku waafaqday inay sax tahay ayaa ku dhisan tahay sida darteed xataa meelaha maaliyadda iyo iqtisaadaadka waa laga isticmaalaa kadalika adabka waa loo isticmaalaa iyo thaqaafaadka iyo dhaqanka iyo hidaha bulshada waa loo isticmaalaa ciyaaraha kadalika arimaha diinta marka waa maxay dhammaan dawladaha carabta iyo kuwa muslimiinta intooda badan waa laga isticmaalaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka maxaa yeelay waxa ku dhisan ba carabiga habarta baadiyaha joogta ee Soomaaliya joogta baadiyaheeda kitaab yar ay haysataa laga yaabo inuu 40 yahay laga yaabo safina salaa inuu yahay carabi uu ku qoran yahay soo ma aragtid marka la soco cali raago luqada carabi waxba kama sheegi kartid fadligaana wax yar soo qaadanaya xadiiska ku soo aroortay quraanka waxa fadli ugu filanba inay tahay midii kalaamka Ilaahay lagu dhiso lagu ku soo dagay xaamin wal kitaabil mubiin inna ja'alnahu qur'aanan arabiyya fi surati Zukhruf Ilaahay wuxuu yiri waan dhaartay buu yiri kitaabka cad baan ku dhaartay ayuu Ilaahay leeyahay tabaaraka wa ta'ala inna ja'alnahu qur'aanan arabiyya Ilaahay maxaa ula jeeda marka la'allakum ta'qiluun ina fahamtaan baa laga yaabaa luqad kale lagu fahmi karo quraanka sida dhabta lagu fahmi karo la'allakum ta'qiluun Ilaahay tabaaraka wa ta'ala ayatan muxuu ku yiri markuu quraanka ka hadlay wa innahu latanzilu rabbil alamin quraanka rabbil alamin ba soo dajiyay nazala bihi ar-ruhul amin nalku jibril ba loo soo dhiibay ala qalbika
لتكون من المنذرين على قلبك محمد نبي محمد بلو جيدا قلبك هذا لو سو دجي سادتك ugu digtid إلهي ومحو كل سنة لقد كسعدا بلسان عربي مبين فان كذا إلهي تبارك وتعالى ولقد فانين وهو الرئيس لقده markuu leeyahay yani ilaahay baba aayadiisa waxay ka mid tahay in quraan yani luqadaha iyo midabada dunida kala duwan ay tahay aayadka lagu gorto nacam luqado ilaahay baa sameeyay laakiin hadda ka hadlimayno luqada carabiga mooyaan luqad kale ma jirto ma ka hadlayno laakiin say u kala sareeyaan way luqada carabiga baabka ugu horeeya taagan maxay ilaahay baa u doortay luqadaha kale waa jireen waagaas ilaahay baa u doortay luqada carabiga laanaha fasiixa gaayatul fasaaha wal bayaan la'allakum ta'qilun ina quraanka fahamtaan weeye sida quraanka yani carabiga lagu soo dejiyay taasa la fahmayo sida darteed kufaar quraysh waxay dhaheen nabiga ayagoo dhaleecaynaya waxay dhaheen nabi maxamed quraanka waxa baray bashar ayagoo tilmaamaya nin ruum ka soo jeedo biraha tumi jiro magaalada maka joogi jiray ilaahay markuu wuxuu yiri tabaaraka wa taala ilaahay wuu og yahay yani gaaladu innahum yaquluun waxay leeyihiin inma yuallimuhu bashar bila adam baa soo baray نبي محمد القرآن إلهي محيري لسان الذي يلحدون إليه نكا أي كتهم يانو إليه النبي محمد سيا القرآن كصبري عرب كيسي اللغة كوار وامحي أعجمي وي وهذا لسان الله أكبر وهذا لسان عربي مبين قرآن كنا وعربي عد مبين أو فصاحة كلا ديكا إذا هو الدفاعي اللغة العربية سومالك قرآن هو أساس عليه عجمي كسومالك عجم معنا ذو محي أكيد كده عجم واحد آمسونو ساكت كا marka dadka carabiga kuma hadla quraan lidaalika quraanka aad aragtay hadaad qofku fahansanay carabiga iyo usluubtiisi quraanka ma fahmayo waana mid caal raaga haysata dhibaatada haysata way ahadiista kadalika iyo qawaaniinta ku dhisan tahay marka luqada carabiga saas way quraanka ku soo aroray fadliga ku soo aroray lama xisaabin karo walaalayaal laakiin wax yar aan ka soo qaadan sida ahlu sunnah wal jamaa ay qabaan عجمت يا عربت يعني عربتها فضل بدن سيدا أهل السنة والجماعة يقبان إلا ضدك لو يقان مويانه شعبيين كوا صو انكره وكوا قوميات أي عقائد كذا كل سنين وأنا سيدا على الرجاء وكله لذلك أنت بدن وحول ليه صوماليين ما واحد كستكور رئيس وبنتا إسلامي ما واحد كستكور رئيس قوميدنimo isticmaalaya bimaana shucuubidnimo kuwaasi iyo kuwa maartay adoomadu ay dhaleen la yuhibbuna al-arab ma jecla fadligoodana qari mayo walidalika sheekh al-islam alayhi rahmatullah wuxuu dhigi jiray fa inna qawlkoodu bid'atun wa khilaafun wa wax cusub ay la imaadeen marka haddu noola imaanaya walidalika Soomaalidu ay tixgelin jireen carabto hatta carabiga meel iska qoro waxay moodi jireen quraan iyo xadiis bi moodi jireen barakaysan jireen meel ay dhigan jireen day waxa ku beeran laakiin haddu rawana al raaga bidcaan nagu dhaxawur anagoo Soomaaliya yani anagoo Soomaaliya inuu bidcaan nagu dhax abuuro raba oo nagu dhax keeno haddu raba inuu nagu dhaxawuro al raaga marka bidcadaada yeeli mayno mana ka qaadanayno marka waxaan leenahay oo ku soo arooray oo yani ku imaatay masaa'isha xadiis nabi maxamed laga wariyay alayhi salaatu wasalaam hubbul arab iimaan Soomaali hubbul arab iimaan yani arab oo la jeclaado iimaan way wa bughduhum illa na'ana nifaaqun way wa oo ka gaalnimo wa xadiis aga wadi hasan oo sugan bughdul arab wa nifaaq وحبهم وإيمان هل اسوي ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حيره إلهي خلقه وأبوري خلقك كوي ugu khayr badnaa iga abuuray bulay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam خلقك كوي ugu khayr badnaa jifa kasi khayr ugu si khayr badnayd oo quraysha ilaahay iga abuuray quraysh oo dhan mee ku ugu si khayr badnaa yani reer bani haashim uga si abuuray aniga marka naf ahaan iyo nasab ahaan ba dunida ugu fadli badan ولذلك محيي انا سيد ولد ادم ولا فخر فانا marka al raaga waxa mid xoogaa inuu hayo dhaqanka yahuudada waaga yahuud waxay dhaheen maxay taa carabta nabiga laga dhigay way xasteen wayna mucaaradeen xoogaa waxa mid al raaga afkaarta inay xoogaa ku jirtaa macquula Allahu a'lam inay xoogaa ku jirtaa laga yaabo Allahu a'lam urkiisa marka macnaheedu waa maxay
النبي عليه الصلاة والسلام حط المامية إن عرب أو خير بدن بلا آدم كلا كأبوري كل جزء خير بدن قريش كل جزء خير بدن ربنا هاشم لذلك الصدقة لقى حرام لأنها من أوساخ الناس تتكوسخ ضوء يعني عقدة قبيل أهان عقدة شعبية يقومية وين سكوتشرين مركات كه ليس مسائش شرعية هي مسائش يعني مهم كه وحكم إذا مسائش أو قصة أرورتي يعني هدي اللي كورن يعني حديث قصة أرورتي حديث النبي اللي قولي عليه الصلاة والسلام عباس بن عبد الله وحليه نبي وحسوق قارتي ضدك قاركود وهذا الكوحد ليه منبر كفولي مركز يري من أنا قيان أحي قالوا حيدين أنت رسول الله يباته قال حين أنا محمد بن عبد المطلب أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ويه إن الله خلق الخلق أبوري فجعلني في خير خلقه لا يوحغير خلقه يكون خير بنا لبون أكله بحي عجمي عرب بين نقطة تيجو في عنا بلا هيجابوري تيجو سي في عنا دا يجو سي أبوري قبيل كوجو سي في قريه كو في عنا بلا هيجا دحبوري ورهم مكة وبلد الله الحرام أيوه قد حبوري فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا وخيركم نصبا أنا قري هانا إنكو خير بدن نصب هانا إنكو خير بدن والنبي محمد بن الله ترتمي سامركا وبين بعض لهذا سوماليا وحين النبي محمد الساس سوير على الراجل الساس سوير كيوات قادنا يسان أديك يدين الله أديك يدين الله مركب بالآدم ودن وعربي عجم بوقيب سنة لذلك حتى واجه الإسلام قبله ويس عجمته وحلو يقاني ضدك عن مسلمين تاهين سيدا فارستي الروم كيلو يقان حتى واجه أساسي هاي بريق الدنبا مسلمين توكسوا قوئين ومسلمين بدن إمادين أي يعني صوغ الإسلام كا أي واحد نقطي يعني إن أي ليرada عربتنا كواس أو خير بدن عجمتنا وحقول رئيس بهان ولا مركي خطرتها مركي حديث كان يعني أصوم مرنا وحكو عادية هاي إن عرب أي كفر اللي بدنتها أما أي كسر رئيسه نصبهان بعد لقاه ليه دين هاني دقن هاني أخلاق هان لقاه ليه نصبهان تدخل كلام نصب سرية ولا أوجه لما ينكري كرو ها والله فانسية لذلك علماء محيدا فقه مركي مريان قريش وجيا قريش عجم مجيده ماشي كارتين سومالك ها لذلك وحو النبي عليه الصلاة والسلام الحديث اللي جوري وحو يري قف قلبي إيمان قلي ميو إلى أتشعلاده قريش يا عرب يا قرابة إذا هوس إلى أتشعلاده على بيت كيجا إيمان قلبي سر رسمي ومقليه أي رسول كان عليه الصلاة والسلام حديث لو جوري حديث كلا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل رش إسماعيل ضل النبي إسماعيل إلهي وحكى دورتي را كنانة وكدورت واصطفى قريشا من كنانة وحكى دورتي قريش واصطفى من قريش قريش وحكى دورتي من بني هاشم واصطفاني أنا جنا إلهي وحكى دورتي من بني هاشم ري هاشم بإلهي قد دورتاني جنا حديث كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي صدا كسو أرورتي لذلك القرآن كم حال يقول كسو أرورتي وإنه لذكر لك ولقومك ومركز يحلي القرآن كان وحد دقيق هذه يقوم كذا لين معناها ماشي أقول رئيس كل عيو وقنتاك والكاس ضدك كل تابع بويهن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عربك عجمتك كذا حن عربتك كذا حن بالرعسية عجمتك كذا في عنا عربتك كذا في عن بالرعسية ولي قدتك تابع يقويه لذلك أفكارت على الراجع هموديننا أسوأ إنه ماميو أسوأ عقلي سككيني نمر هرو عربة أو هريي وهذا غاركون نور أيا كيني أو عقلي جودا ككيني فاسد كا أسوأ مركز الصومالي هم بنوص الرجاء أنك أنا عربي حاجة أقون برشلونة أنا إسكا مارتي ما شاء الله إسكا براكيسن في الصومالي جودا براكيسن إسكا الله أيو رومي أنو ضحكينه ضدك مساكين تبع ربنا كذا دنيا يسوون أفكار تنكيني وحو عصبون يسين أيو أنا مركز مشروع بان وضاب الليل وهلس الله مستعان وإنه لذكر لك ولقومك لقد جاءكم رسول من أنفسكم وعرب وقريش رسول نفتي نكمده أيا إذن إيماضي نفتي نكترسن ولذلك حديثته كو إماتي أو كمده حديثته حديث قصة دير لها وحديث أخرس كمدها
wuxuu rasuulku yiri maxaa yani waa maxay dad waxa iga soo gaaraya inay leeyihiin yani haddii alagu arrin baa iga soo gaartay walidaalika rasuulku yiri ilaahay samaawaadku abuuray toddobo ka dhigay tii ugu sarreysay buu ka doortay wuxuuna dajiyay khalqigiisa ku ugu yani uu doonayay khalqigiisu musana abuurtay khalqigiisii bani aadam buu ka doortay wala qad karamna bani aadama bani aadamkii carab buu ka doortay carabtina reer mudar buu ka doortay reer mudarna quraysh buu kasii doortay qurayshtina reer bani haashim buu kasii doortay reer bani haashimna nebi maxamed buu ka doortay sidaa darteed muxuu yidhi fa ana min khiyaarin ilaa khiyaar khiyaar baan kasoo jeedaa khiyaarna waan ka imaaday buu leeyay calayhi salaatu wasalaam faman axaba alcarab qofkii carab jeclaada fabixubbi axabahum jacaylka aniga uu jecelaya dartood buu u jeclaaday waana dhaqanka soomaaliya ka dhaadhacsano waxay dhahaan carab ha caaya nebiga kasoo jeeday waa fidrad fiican wey faman axaba alcaraba fabixubbi axabahum waman abqada alcaraba qofka carab u carooda fabibuqdii abqadahum ani nacayb uu necab yahay darteed buu carab u nacladaya oo u caayaya oo waxooga sheegaya masaladu macnaha halkaasi kusoo arooreysaayo ay soo gelaysaa marka af soomaaliga uu sheegayo cali raaga meesha la fadhiyo ma ahanin waxa nabi maxamed laga dhaxlay oo diinta ilaahay laga soo gaaray ma ahanin lidaalika in loo caroodo jinsiga carab la colaytumo waa gaalnimo ama sabab bay gaalnimo u tahay sida sheekh islaam leeyahay alayhi rahmatullah li'annahum afdal min ghayrihim ghayrkood waa ka fadli badan yihiin iimaanka awoodiisana waxa kamid ah in la jeclaado waxaana la xaraam yeelay in yani la naco bal waxaaba laga dhigayba sabab ay ka noqon karta qofku inuu diinta ka siibtaba oo ka xuub siibtaba bal waxaaba laga dhigayba in cara nebi maxamed oo caraysan tahay noqon karto hawshu ma sahlana mana yani daalugu yani dhawa lidaalika marka waxaa la doonaya qofku inuu iska ilaaliyo hadaladiisa kasoo baxaya dad waxaa jirta maanta ereyga kasoo baxayaan waa abiyeeri lidaalika maanta haddii hadalka laga dhigi lahaa wax iibo ganacsiya dad badan baa laga lagacaysan lahaa markuu hadlaba keen lacag ama afkiisu xiran lahaa marka hadduusan lacag haysan laakiin yani hadalkii wuxuu noqday bilaa lacag marka uu iska hadlaya nin walba wuu iska hadaaqaya nin walba wuu iska matagaya nin walba wuu iska yani fatafictionaya nin walba laakiin hadalka hadduu lacag looga dhigi lahaa ma hadleen cali raagi lidaalika saas yani haddii alla kuuran yahay u hadlaya wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam abubakar oo la jeclaado cumar oo la jeclaado waa iimaan abubakar iyo cumar oo la nacana waa gaalnimo carab oo la jeclaadana iimaanku ka mid yahay carab oo la nacana kufriga ayay ka mid tahay bal waaba nifaaqun wa kufrun isa saaranba waaba halisba sida aathaar ku timid lidaalika culimmadu waxay ka alifeen rasaa'il badan iyo kutub badan kuwa hore iyo kuwa dambaba kuwaasoo yani ka dhaxlay arrintaa fahamkaasi yani nebi maxamed fahamkiisi iyo axaadiistiisi iyo qur-aanka wuxuu tilmaamay lidaalika nabigeena muxuu sheegay man gasha alcarab qofkii carab khiyaama shafaacada maalinta qiyaamaha aan qaadi doono ma soo gelayo qofkaas bal jacaylkaygana maba gaarayaba anigu mana jeclaanayo rasuulkiina calayhi salaatu wasalaam marka qofka noocaa samaynaya nebi maxamed buu yani kasoo horjeedaa nebi maxamed buuna ku been abuurinayaa nebi maxamed buuna colaadinayaa macnaha meeshay ku biyo shubanaysa arrintu waa halkaas asagoo ha yiraahdo maya arrin kalaa jirta iyo arrin kalaa jirta sababkaasi dadku waxay ku kala fadli bataan oo ay ku yani ku kala sareeyaan caqligooda iyo carabkooda iyo akhlaaqdooda iyo camalkooda akhlaaqdooda iyo camalkooda iyo caqligooda ayay carab uga shareeyaan dadka kale khasaaistay leeyihiin wey hebel buu ka caqli badan yahay soo lama yihahdo marka carabta waxay ka caqli badan tahay cajamta sababtoo saas u hadlayaan noocaasay u hadlayaan oy u fakerayaan oy u hadaaqayaan marka dadka yani dhammaystirka noocaasi ka baxsan imaa waa yuhuud iyo kristaan waa imaa keyrkooda oo cajamta ah kuwaasoo aan dhex gelin ama aan fahmin fitradii lagu abuuray walidaalika caamatul cajam waagaas waxay ahayd gaalay ahaayeen farisi ruum bayna kasoo jeedeen lidaalika maxaa la reebay cajamta waagaas in laisku shabaho ayaa la reebay oo gaalada ahaa marka qadiiman wa xadiidan waa la diiday lidaalika xikmaddu waa maxay yani bilisaanin carabiyin mubiin loo leeyahay lidaalika dadkii hore xataa ee saabiqiinta ee diinta u horeeyey maxay ku hadli jireen carabi bay ku hadli jireen abubakar iyo dadkii ugu wanaagsanaa diintay fahmayaan iyo diintay xifdinayaan ma ahayn ilaa bitabdi lisaan carabkay xifdin jireen oo luqaday baran jireen oo yaqaaneen ku dhasheen wax ku abuuro sariiqa bay ahayd lidaalika macrifada iyo aqoonta u leeyihiin diinta waxay ahayd mid toosan oo sahlan laakiin cajabta markay diinta soo gashay in badan luqadii diinta ku dhisan ay fahmi waayeen waxay ku hadleen hadaaqo ay ku hadaaqeen waxyaalo badan oo bidca ah oo ay ka mid tahay afkaarta noocaas ee wacala raaga meesha la yuururo
lidaalika marka waxay noqdeen dadkaasi kuwa ugu yani dadkii yani islaamka hore ee carabiga ku hadlayo dee diinta usoo gargaaray waxay ahaayeen dadka ugu dhow yani daalikuna kuwa marka carabiga ku hadla oo ku dhaqma kuwa ugu dhow saabiqiintii hore ee muhaajiriin iyo ansaar iyo dadka wanaagsanaa ay ka mid yihiin oo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu horeeyaan lidaalika sheekh islam caleyh raxmatullah kitabkiisa iqtidaa siraat mustaqiim wuxuu sheegay carabtu magaca carab asalkiisa buu yidhi dad buu magaca u ahaa kulmiyey saddex sifo waxay kulmiyeen carabkooda wuxuu ahaa luqa alcarabiya ku hadli jireen waxaa kaloo ahaa min awlaad alcarab bay ka mid ahayn carab bay ka dhasheen meelahay degan yihiin dhulka carabta oo jasiiratul carab bay ahayd saddexdaa qofkii kulmay ah ismul carab ku dhici jiray buu yidhi waagii hore jasiiratul carab buu markaa sheegay caleyh raxmatullahi oo markaasi qariiradii buu ka hadlay laakiin markii islaamkii uu magaalooyinka kale la furtay oo maqrib iyo mashriq la kala furtay iyo dhulkii sham iyo armenia iyo dhulkaas yani dhulkii faris haysatay iyo ruumkii iyo barbarkii waxaas la furtay dadku waxay u qaybsameen laba qayb ama bilaadka waxay u qaybsameen laba qaybood dad yani aqlabkoodu uu ahaa carabiga ay ku hadlayeen oo wax kale aan garanayn iyagoo markaa xoogaa laakiin laxni uu ku jiro oo waa dadkii markaasi deganaa sham iyo ciraaq iyo masar iyo andalus iyo dhulkii la oran jiray iyo khuraasaan iyo waqtiga hore iyo kuwa cajamiyadooda iyo luqada carabiga luqadaha aan ahayn yani luqada aan ahayn oo luqadaha kale ku hadli jiray yani sida dhulkii turkiga iyo armenia iyo azerbaijan iyo dhulka kale marka dadkii meesha ku noolaa marka waxay u qaybsameen nin carabi iyo ibtidaan carabi u noqday bilow ahaan iyo mid carabi noqday intiqaalan carabi u noqday iyo mid noqday يعني هدي اللي كورن عجم نقطة أما عرب كسو جوري لغة دي وسو جوري عجمتي أي نقطة كذلك أنصابته ينصب كوقع بسمي صدح قوم نصب كودو يها عرب يقوم يعني هدي اللي كورن يوم مركز النقطة يعني وأنا كوي دارهان يمجالهان يلقدهان يهدي اللي كورن يعني كباقيها وكل اللي يقوم العربي يقوم يعني هدي اللي كورن يعني مركز دنبي أصل كذا عربه لكن أي نقطة luqadooda cajamiyad ay noqotay ama dhulkay degan yihiin ba cajam noqday oo dhulkii cajamta noqday ama luqaday ku hadlayaan ba cajam noqotay oo tusaale kale anagoo kale waa ka mid nahay iyo qoom majhuulun oo aan la garanayn ma asalkoodu ma carab bay ahaayeen mase waa cajam bay ahaayeen mase way ka guureen mase yani hadal dheer buu sheegay caleyh raxmatullahi waxaan hadalka ka fiirinaysaa oo aad ka eegaysaa kitaabkiisa qiimaha badan ee la yiraahdo iqtidaa siraat mustaqiim limukhaalafati asxaab aljaxiim jidka toosan oo la raaco iyo khilaafka la khilaafo dadka jaxiimo wadadeedii haya kitaabka noocaas laba mujallad taxqiiq naasir ibn abdulkariim aqli marka aad masaa'il aad u dheer buu kaga hadlay iyo taariikhda carabiga nasabkii iyo maaragtay luqadii iyo deegaamadii iyo waxyaalo badan buu sheegay raxmatullaahi calayhi halkaas ugu noqonaysa macnaha aayadahan soo marnay quraankeena iyo diinteena inay ku dhisan tahay luqada carabiga ayaa muhiim maxaa ilaahay ugu doortay quraankiisa inuu carabi ka dhigo maxaa ilaahay quraankiisa iyo diintiisa ugu dooray carabi noqoto nabi maxamed oo carabi inuu ku hadlo maxay u noqotay taasaa kaaga filan walaalkii muslimka ayo fadliga ay leedahay carab taasna macnaheedu ma ahan carab oo dhan waa way saxan tahay oo wanaagsan tahay akhlaaq iyo toosnaan ka hadlamayno mar kasta dad toosan oo wanaagsan baa ummadaha iyaga horeeya cajamtu keeda xun kan xuna carab ku xiran yahay cajamta keeda fiicanna kan carab ay fiican buu ku xiran yahay walidaalka rasuulku muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam taabic ayaga u yihiin mid walba taabic kaas u yahay sida xadiiska muslim ku soo aroortay marka macnaheedu mar kasta kama hoos baxaysid afkaarta cali meesha la fadhiyo leeyahay waxaan carab ma doonayno wax la carbeeyay doonimayo afkaarta wuxuu ka keenay waxa way waa carab meel kale kama keenin laana ma yaqaan albaab kale oo la garaaco dadku ma yaqaan albaab kale oo la garaaco marka wanaaga ilaahay ana waafajiyo tabaaraka wa tacaala tan intaasan kusoo koobaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh